marka xigta waxa weeyaan maanta kulankan ama barnaamijkan ay isku nimid waxa weeyaan waa laba waxba isku jira waxa weeyaan xaflad furitaanka maxadka farsamada gacanta ee qaybta mechanicalka iyo waxa weeyaan imtixaan ardaydii laga qaadi doono ardaydii u tartamaysay oo galaas waxaan u qaadan doonaa 20 arday maanta waad aragtaan waxa jooga 100 arday oo runtii waliba 100 iyo something arday oo kalena aanu ku reebnay short listka markii ay noqdeen dad jaamacada ku jira oo aan labada gelinba chance hayn ayaa waxaan soo saarnay dadkii labada gelinba waqti noo helayay ayay 100 kani kamid yihiin maanu sameeyay inaanu warbaahinta oo dhan ku faafino waayo waxaanu garanaynay baahida ay u qabaan dalku barnaamijkan oo haddii aanu meediyaha oo dhan gelino waxay noqon lahayd inay kumanaan qof yimaadaan waxaanu sameeynay dadkeena waxaanu aragnay baahida noo soo baxday oo runtii noqotay in dadku u baahan yihiin farsamadii gacanta iyo in la nooleeyo mechanicalkii runtii waxaan taa nagu dhaliyay wasaarad ahaan oo aanu dagaalka inta leegu galnay waxay ahayd dalkeena waad aragteen gaadiidka maanta jooga waxay u badan yihiin gaadiid 90 something 91nadii 1990nadii imika laan guruusalada fiyagasoo kale waxa aad loo jecel yahay waxa weeyaan 91 iyo 93 iyo way sababtu waxa weeyaan mechanicalkeeni ma aha updated oo lama socdo aaladihii ama internetkii saawadeed waxa weeyaan mechanicalkeenu waxa weeyaan waa dad xirfadlayaal oo runtii fiican oo shaqo badan wadanka soo gaartay wax badan oo soo qabtay laakiin waxaanu doonaynaa qolo ka aqoon sareysa oo dhalinyaro aqoon leh haddii la ku reeyay maanta waxaanu qaadanaa imtixaan English iyo Physics iyo Maths baanu qaadanaa meesha kaliya daahayda gaadiidka dawladda laga xukuma laga dhaqaaleeyo cimri dheerka keentay intan dambana imikana haddii aqoon-yahano loo helo waxaan wasaaradda aad ugu hambaliyaynayaa baabuurta xataa dawladda ayaa badbaadaya oo baylaxnimada imika ay ku jiraan ka baxaya oo markay qaarkood aragtid laamida markay marayaan qiiqa markaas la yiraahdo waa GT cid baan lahayn waana kuugu muhiimsan moogta waxaan fili doonaa waxan inay markaa ka fargarayn doonto wasaaraddu waa bilowgii kolka aqoon-yahanka la helo waxaanan aad iyo aad ugu hambaliyaynayaa wasaaradda inta badan waxa nin hagoog xuni inuu wax qarsanayaa la moodaa hatta qofku hadduu cadaalad sameeyo hadduuna wixiisa banaanka sidoo kale u soo dhigin oo hatta ilaahay dartii cadaalad u sameeyo kalsoonida shacabku way liidanaysaa laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigu runtii ama imika aynu ogaano ama waqti dambe aynu qaato waxaan la markaa waqti badan iyo inaas ka luminin aynu sidan oo kale oo runtii aan ugu mahadnaqayna maanta wasaaradda hawlaha guud sidan oo kale aynu waajahna xaqiiqada oo aynu waxbarashada u bilowno iyo wax dhigista dadkeena cadaalad aan u bilowno aqoonta aynu wax ku bilowno maanta waa gaadiid wax baranaysaan gaadiidku inuu aqoon yahay bay ogaan doonaan kuwa geerashadu waxa laga yaabaa inaan islahayn mala waa aqoon laakiin waa aqoon waxa weeyaan farsamo ahaan bay u barteen imka nimadan iga duubaya kamarada farsamo ahaan bay barteen kamarada laakiin qalin iyo waxa lagu sameeyay waxa weeye cilmi baa lagu sameeyay cilmi science baa lagu sameeyay technology idinka imka waxa la ka qaadayaa Physics iyo Maths iyo English saddexda weeyaan farsamo kasta oo baranayso inanka kamaradaas hadduu doonayo imka inuu jaamacad kaga soo baxo sida loo sameeyo wax soo saarka film sida loo soo saaro film sida loo sameeyo loo soo saaro waxa weeyaan waxa anfacaya waa cilmi science iyo language marka imka waxa la ka qaadayaa Physics iyo Maths iyo English saddexdaas haddaad garanaysaan oo aan runtii waxa ujeedaduna tahay wasaaradda waxbarashada imka iyo xafiiska imtixaanaadku saddexdaas buu rabaa cid ugu fiican waayo saddexdaas un baa farsamada ka midha dhalinaya ka kala wuu hadhaya saddexdaa inta ugu fiican haddii imka aynu qaadano way sii wadan karaan oo ilaa waxay ka gaari karaan heer masters PhD bay ka gaari karaan intaas kadib maanta runtii waa maalin weyn waa maalin dareenno kala duwan iyo muuqaallo kala duwan bixinaysa waa maalin ay ugu horeyso inaynu dadkeena aqliyad 25 sano lagu shaqeynayay hay'ad aqoonta academic oo kaliya inaynu maanta u bedelnaa aqoonta gacanta iyo xuduudda laga qabto adduunyada maanta horumartay diyaaradaha iyo dabaabadaha iyo lugniyeerada iyo hub kale waxay ku horumartay waa farsamada gacanta ee maaha aqoon oo kaliya maanta inaynu u joogno xaruntaas oo aynu 25 sano kadib dareennay halka aynu qarankeenu ka tanaadilayayna taa farsamada gacanta iyo xuduudda laga qabanayay
maanta waa maalin weyn runtii aan ku faraxsanahay dhammaanteen wasiirka ilaahay waafajiyey iyo inta la fududaysa hawshaas inay maanta horteena timaadaba taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland meel weyn baad kaga qormaysaan waxaad kaga qormaysaan xaaladii isbedelka ee Soomaaliland cusub ee u tallaabsanaysa farsamada gacanta iyo cududa laga qabto in maanta ilaahay waafajiyo wax weyn waxa dareen labaad nagu leh ama aniga farxad gaaraya ama runtii hambalyo baan oran karaa inaad tartankan furan maanta ka soo qayb galno ma aha shaqo uma tartamaysaan oo hay'adda shaqaaluhu shaqada ilaalisa in tartankii shaqada lagu helay waxbarashada u tartamaysaan waxbarasho heshaan waa cadaaladda wajigeedii koobaad in imtixaan عدالي أو جودي امتحانات كقرن كو أي قاضي يعني وزارة وحبرشدو يدونا وأستان مشرسة قيم عدالة مركا وحنكو صورنا يا بيكتشر كجود أما صور كجود أي بحين الصحف لدني إنه يهاي هورمر يا عدالة أو لبضة بقى سكول فرسمة جعنتها قيبت مكاني كذا أو نقول دونا سكول أي دكتان سنة كستلا بعتنا ردي كسب بحان laba sanadood uu noqonayo waqtigiisu laguna qaadanayo shahaadada diploma runtii waa wax aad iyo aad wasaaradda iyo qarankaba qiimo weyn ugu fadhiya waxaynu halkan u fadhinaa iskuulka aan sheegay ardaydii ka qayb geli lahayd oo imtixaankii halkan lagu qaadayo lagu kala hufayo lagu kala haadinayo waa aragtaan guddoomiyihii xafiiska imtixaanaadka daawud oo imika aanu la yar kaftanooni haddaa daawud halkaa garhkiisaa weyn aragtaan imtixaan baa yaalla meesha ciyaari ma taal iyo dhammaan mas-uuliyiintii oo dhan iyo wasaaraddii waxbarashada iyo hay-addii shaqaaluhuba waxay maanta halkan idinku yimaadeen in imtixaankaas uu noqdo imtixaan si cadaalada u dhaca oo si hufan u dhaca oo ardaydii loo baahnaa ay ka soo baxdo halkan waxaa ku fadhidaan malaa 100 iyo dheeraad sidii imka leedin sheegay waliba waa intii u dambeysay markii screening la qaaday intii short list ku soo baxday 100 iyo dheeraadkiina waxa ka soo baxaya 20 ka soo baxaya oo physics iyo maths iyo english laga qaadi doono waxaanay noqon doonaan 20 ka ugu sareeya xagga markiska waxaasna iyana jiri doona ilaa 10 waiting list noqon doono haddii cid ama baxdo ama si uu uga baxdo si aan imtixaan kale loo qaadin kii ugu soo horeeyay ama kii kale ugu soo horeeyay uu liiska u soo galo marka halka imka ay joogto annaga hawsheedii imka qayb ahaan waanu dhamaysanay wasaarad ahaan iskuulkii waanu diyaarinay macallimiintii oo aad u aqoon weyn waanu diyaarinay qalabkii laydinku tababari lahaa waanu diyaarinay galaaskii aad fadhiisan lahaydeen galaas aad iyo aad u qurux badan oo arki doontaan intiina nasiibka washa soo baxdaa waanu diyaarinay laakiin hawsha imka halkan taala annaga xilkeeda oo dhaminama saar xilkeedu wuxuu saaran yahay xafiiska imtixaanaadka qof qura oo halka fadhiyo anigu shakhsiyan aan garanayaa ma jiro